waxaan idin sheegayaa odayaasha annagoo ah iyo culumada rag kamid ah ninka la yiraahdo maxamed madaxweynaha farmaajo hadeer maalin dhaweed markuu yimid waa u tagnay waana la hadalay waxba una naga ballan qaad annagu waxaan niri laaluushka ma rabno lacag ka ma rabno jaga ka ma rabno waxaan ka rabnaa 18 gobol iyo 92 degmad dawladda Soomaaliya ku baarba 18 gobol iyo 92 degmo gobolkan galmudug waxaan ahayn ee abni iyo shacab iyo ciidan iyo hub iyo dhismo iyo dhul banaan oo dawladdu leedahay lagu wareejiyo ma haysa maya waay hal xaafada ma wahayo hal xaafada iyo cid ku wareejiso Soomaaliya midna lama arko meel walba xabad iyo qoriya laga horyin sababtoo ah waxa ay yihiin aan ogyahay anagu waa ogeyn laakiin waxaan islahayn ama Soomaali ama adduunyadu yay odan oran nimankaan waxbay diidan yihiin oo dawladdiidu way wuxuu isiri marka haddaad xoogii kala wareegto oo hubkii kala wareegto oo hantidii kala wareegto oo dawladnimadii kala wareegto waa candhuuf geed saaran aad bitidid oo isiri waxa la yiri cadur dhawdu ma dhacsana la yiri cadur dhawdu ma dhacsana maqle mid kalena waa idin sheega haddii qof reer galmudugu markuu hadlayo uu gacanta saasiira arintu ma dhawo waay maqle hadduu miiska ka horeeyo dhulka ku garaaca fartana laguma guulaysan waa maqle hadalkii waa soo gaabinaya dawladdan la hadlaya war deegaankaad u dhalateen waa la idin rabaa dadkaanu dawladdiid maaha weligoodna dawladna diidin ayadoo dawladdu u dhisan tahay oo calan leedahay oo dastuur leedahay oo maamul leedahay oo madax leedahay oo xildhibaan leedahay oo wasiir leedahay inta wixii oo dhan la baabi'iyay dawlad Soomaali jacayl iyo Soomaali jacayl gacanta la idinka saar war dadkaanu waa dulmidiid mideeda kale waxa la idinku diidan yahay oo la idinku la dagaalamaya dadka reer galmudug itus oo itaabsi waa waxaan leeyahay itaabsi waxaad iga rabtana itus ma maqle waxaan ku soo gaabinaya annagu wali waa samrayna qof kasta oo galmudug u dhashow ama daba joog ama guda joog meeshaad rabta joog war qof kasta oo galmudug u dhasho damiir raho oo dadnimo laho oo inuu ama mustaqbalka wax ka noqdo oo madax ka noqdo ama inuu ka ganacsado doonayo war inta timaadid xaaladan ka jirta galmudug inta timaadid horta bal yaa gardaran xagee qaladku ka socda imaada maalin arko duurka ka fiirsanine waxaan ku soo gabagabaynayaa heehatay ka tahay heehato nin diyaarad laga keenay meel ka shaqeeya iska dhaafay xamar laga keenay heehatay ka tahay galmudug inuu soo jaga ka qabanay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh